halkani waxa xaafada nafaqada oo dhacda dhinaca koonfureed ee magaalada Boorama abaar 3 gabdhood ee maanta ay dab xooggan ka kacay 3 guri oo wadaag ah oo deganayeen dad dan yar ah guryahan ay deganayeen dadka dan yarka ayaa gabiyahan balkaasi ku basbeelay horintii ciidamada gurmadka degdega ee dadmisku ay soo gaareen goobta waxna shacabina ku dhaqan xaafadaasi dabku ka kacay orbeenta la hadlay ay cabasho xooggan ka muujiyeen habka uu shaqeeyaan ciidamada dadamiska ee gobolkani Awdal oo dhilo kala duwan u soo jeediyeen kuwaas oo sheegay in ay waceen ciidamada gurmadka degdega nasiib darasa goobta ay soo gaareen xilliga gabiyaha basbeeleen guryahaasi isla maratan halkaas ay ku burburtay hantidii taale guryaha gubtay ciidanka dadamiska ee gobolka waxa yimaadeen xilli hadii dadku iyo bungiyo wixii dadku dhaxyaalay saxibada ku gudeen marka waxa leenahay sida laga daayo dadka loo shaqeeyo loo soo jeedo ay xaafadda nafaqada dibada qabna waxa weeyaan dibada qabna oo bunkii masaada ama gurigii masaada dadka waxaan u sheegaynaa dawladda cusub ee imika madartay oo wixii kala wareeg doona mudan in masabiix cabdi waxaan u sheegaynaa in ciidan madartay ka shaqeeya oo gurmado degdeg la keeno taasoo markay dabku qabsadeen annagu waa qaali soo jiray ninkii nabadda soo qaraacay ee qaali soo jiray anigu waa taasoo tahlay in dalka lagu soo gudbo waxaan tahalnahay gurmad degdeg in magaalada loo sameeyo oo shaqaale cusub oo gurmanayna loo sameeyo maxaa heleenay waddanku u batay cid u baxda markaa weynay ee naynay kale oo qaraacay diktoorkaana qaraacay diktoorka markuu qaraacay ayay intii iman waayeen ayaan anagu amuud iyo waxa ku sii duminay maxaa heleenay waxa ku sii duminay amuud iyo waxa ku sii waxa liyo wuxuu ka dhashay ma garanayo laakiin guriga waxa gali jirtay oo ma gali jirtay waxa liyo waxa khasaaro ka dhashay weli ma garanayo taliye ku-xigeenka ciidamada dadamiska gobolka Awdal oo dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray shacabka ku dhaqan xaafadda dabku ka kacay waxaan uu yiri bulshooyinta waxaan leeyahay waxay noo soo kordhay dabdamis aynu u baahnayn dabdamis had iyo jeer lagu raadin jiray telefoon ama meerin la garaaco ama darawal in la raadiyo laakiin maanta waxa ka xiga telefoonka gacanta haysato inaad ka soo garaacdo kaliya 990 kadibna ciidanka dabdamiska Boorama oo diyaar idin ku ah halkan ayaa waxay ka qabanayaan waxay ku ornayaan waa ciidankii dabdamiska maxaan ku qabanaa kadib waxaad si taxaddi loogu tilmaantaa gurigu halka uu ku yaalo degmada uu ku yaalo xaafadda magaceeda wadada ugu dhow ee loo soo marayo meesha ugu caansan ee ugu dhow ee lagu garan karo gurigaasi iyo inaad wadada laga soo laabanayo aad u istaagtaan la hilmaamin numberka 990 ama 990 wadaakaysaan telefoonadaasi 24 saac ay heegan idinku yihiin ciidanka dabdamiska degmada Boorama Mustafa Araale SAB TV Boorama